مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلابنا محاضرين إن شاء الله تعالى. محاضرة الظهر رئيس وحاسكال الشيخ مصطفى وسوقيسين انتاس قدرت إلهي كل عدين وما أنت مالتي إن شاء الله تعالى. محاضرة أولية هنا ومحاضرة الثبات كسبنا شاه أسبابتك أنت دين الإسلام كنا كسبناتي. مركزنا كسب دويننا ودام وقتي ويرى فليتفضل مشكورا يا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، هذا الدرس كسكبر ونوقت قاعد يدردد قف كسطاء مسلمة أمنية أمية ديلة أولية هو محكم ذا العمر الطويل والعمل الصالح. إن العمر قول يريه عمل كان وصوبيه. النبي عليه الصلاة والسلام قلت المام خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ذلك هو خير بدن إنك فرصة لسي عمر كيسو ديراضو عمر دير كايوه لسا عمل كيسو ونكسن هذي. الضبط لبضبط إن عمره قدران دونيين كليلة بقرانه سبحانه وتعالى. عمل كاغو حق الضنبه وحكرنا قندوننا إلهي بقرانه. لكن وحالين الفرق سينو تاود يرقرونه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة البقرة يا العمران. هكيريوننا بإلهي سبحانه وتعالى إذن كو مسلم مويان معنى يدوحويان مستمر قواه شوكتها قواهاته إن أدنقطيد قف عمل ونكسن صالحة وذكرن ميسيد كورتا نفتك عبا حيسين. وإنه عليه الصلاة والسلام حتى المامية ضدك بردت حقه هركسوها لك سنادان إن حاجة دمك حمان دونا. فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بالنبي. فهو حكم إذا الدول حقه هراء عمل كيس الصوب بناضه جنة ما مركوين يروجرون دي بسو كافرية وعمل بكحه معه دبتنا النار تكاله عهديا أمر وقتنا إنه النار الله يهدى يقول كان يتشوكتان marka la isku daro waxaad moodaa inuu qofku waqti aad u adag u joogo. sida awgeed maxaa sabaadka keeni kara, maxaa sababi kara inaynu sugnaano? ilaahi wuu inoo sheegay ciddii sugnaata ina aladiina qaaluu rabbuna allahu thumma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika. kuwa yidhaahda allah noo rabbiye ee eraygaa ka dhabeeye ku sugnaada ملاك بكسر دقيسة إلهي سبحانه وتعالى. نبي محمد ينت الله سعتنا ولا فري فاستقم كما أمرت ومن تاب معك بإلهي. هذا جاي ينت كل سعتابا توصلنا هذا. نبي بنوا كيف فري عليه الصلاة والسلام نكي سحابي سؤال ويدي. إلهي رسول بيسي ورا أنا هذا قد بضاعد ويديني شيء بيقول. وركوبا وأنا هذا قاطعا عند بوح ويديني. له عليه الصلاة والسلام حقيري قل آمنت بالله ثم استقم. أنا عدة بابا ويدين هذا ضرب طوحة هذا آمنت بالله إلهي باب رمي
dabeetana ilaahay baan rumeeyey waxa ay sheegayso ku toosna buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddaba ayuha alaxiba, waktiga kan imtixaanaadku waa tiro badayn, iyadoo addunya kullahaba imtixaantay marka hore. waxaynu dunida u nimiba in layna imtixaamo liyabluwakum ayukum axsanu camala. dunidu meel lagu raaxaysto iyo meel lagu nagaado iyo meel la jooga toona maaha. waa meel lagu keenay in lagu imtixaamo. imtixaanka haddaad ku guulaysatana meel baa tegaysaa baa lagu yidhi, haddaad ku dhacdana meel kala tegaysaa. haddaba iyadoo dunidu sidaasiya ayay haddana fitankeedu kala badan yihiin. mararka qaarkoodna ay kugu dhacaysaa inaad joogto meel cid kuu hiilisa ama kuu gargaarto sama kugu gargaarta aanad helaynin, ama mararka qaarkood aad ku nooshay meel diintaadu qurba ay ku joogto oo diintaadoo dham ay gariib tahay. bada alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiba. sayacuudu gariibantu marar badan iyadoo meela islaamku uu ka ballaadhan yahay bay meelo kale ay ku cidhiidhi noqotaa dadka ku nool. haddaba maxaa keensanaya, maxaa kugu gargaaraya inaad toosanaato? kuwaasaynu qodoba ka tilmaami doonaa ilaahay kitaabkiisa ku yaala. waxaynu leenahay waxa ugu horeeya aliqbaalu cala alqur'aan tacaluman wa tacliiman wa tadabburan wa talaawatan wa xifdan. inaynu ilaahay kitaabkiisa qaabilno inagoo baranayna oo dadka barayna oo qaybayna oo ku tadabburayna wuxuu inoo sheegayo rumaysanayna. kitaabkani waxaa loo soo dejiyey mushkilat alinsaani fi dunya kullaha inuu xal u noqdo. aadanaha dunida ku kor nool waxa dhib ka hor timaada waxay doontaba ha noqoto, mid caqiida ha noqoto, mid dhaqaale ha noqoto, mid fikradeed ha noqoto, filosofiya ha noqoto, waxa dhib aadane ka hor yimaada ayaa xalkiisu kitaabka ku jira. haddii markaa qofka muslimkii uu kitaabkan xidhiidh kula leeyay xoogganaado oo aanu noqonin kitaab uu baraka u akhristo. waxaa laga yaabaa qur-aankan inaad akhrido mararka aad masaajidka timaadee wadaadku hore u aqiimi waayo ayaa imka mobaylada jaabka lagala soo yaro baxayo maasaa 2 bej la rogaa. waxaa lagu sugaya un dee imaamkaasi intuu ka adimayo ama maadinkaasi intuu aqiimayo. markuu aqiimana waa la iska laabaa jeebka lagu ridaa. waxay u badan tahay talaawadeenu iyo akhriskeenu inuu yahay maxay? sawaab raadin, ajar inaynu ka raadino. ficlan uu yimi ajar laga raadiyo, laakiin waxaa ka muhiimsan inuu nolosha hago, inaynu u fiirsano waxa uu sheegayo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul nazalahu ruuxu lqudus min rabbika bilxaq liyuthabbita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin. waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyay nimanka gaaleed iyo aadana dhammaantoodba nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq. kitaabkan ruuxu lqudus jibriil baa cirka ka keenay, rabbi ka keenay, isagoo kitaabkani xaq ku dheehan. maxaa loo keena? ilaahay wuxuu leeyahy liyuthabbita aladiina aamanuu, inuu sugo oo xaqa ku sugo kuwa rumeeyey, wahudan wabushraa lilmuslimiin. gaaladu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen iyagoo uga jeeda uun inay muran geliyaan, maxaa qur-aanka kane hadduu xagga alle ka yimi ilaahay buu isagoo kitaaba soo dira bay yidhahdeen. hal maraa muu kugu soo dego, kolbaa in yar ubaad daday, inbaa soo degtay, inbaa soo degtay. intaad kolbaa in yar sheegayso muu yimaada bay yidhahdeen isagoo hal kitaabo dhan oo jumlo oo isku kuusan. ilaahay baa ka jawaabaya subxaanahu watacaala markaa. إلهي وحي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كوا قال وحي هذا قرآن كما يسوى خصوصا لقوسه تشيو ضوضوبة. كذلك بإلهي أي كذلك أنزلناه منجما. حن سودتي إن القرآن كيسوى إن يرى حل سودتي ليثبت به فؤادك بإلهي إنه هذه خصوصا وكل النوع. markaad mas'alo kitaab yaalla ka baaraysa iyo marka ilaahay toos intuu idin la hadlo yidhaaha ficilkana maanta samaysay waa qaldan yihi ama waa saxan yihi ama sidaa ka yeela. wixii 23 sannadood ee nebiga wixii uu ku soo dhameeyey mar kasta dhacdada kasta ee ku timaada isaga iyo saxaabada
ilaahay baa cirka ka soo warramaya u sheegayay waxa laga yeelayo. idan xuluul joogtaa bay ahayd oo mar walba xalka la siinayo. ilaahay wuxuu leeyahay waxaa sidaa ugu galay liyuthabbita bihi fu'aadak linuthabbita bihi fu'aadak waratalnaahu tartiila. haddaba qur-aanku suu noqonaya waxayna dejiya, wuxuu noqonaya qur-aanku isagaa iimaanka beera, isagaa nafta kobciya, isagaa qalbiga qofka muuminkaa bardan wa salaaman u ah. waayo isagaad ka helaysaa aragti saxan oo nolosha oo dhan aada ku miisaanto. isagaad ka helaysaa wadci kastoo aada ku nooshahay xalka aada u baahan tahay. isagaa ka jawaabaya shubha kastoo ay gaala keento. maa min mas'ala gaala ay ka waranto kuwii hore iyo kuwa dambe isku dar, aadamuhu isku noocu, shubhaad kastoo ay keenaan ilaahay ba ka jawaabay. laakiin waxay ku xidhan tahay inaad adigu og tahay jawaabta ilaahay iyo inaad ogeyn bay ku xidhan tahay. waxaa qur-aanka ku jira maalan qisaskii ambiyada iyo dadkii saalixiinta ee hore, oo qisaska waxaa ilaahay inoogu sheegayaa inaynu fahamno oo ku cibro qaadano oo ku dhaqanno. walidaalika baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leey wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuthabitu bihi fu'aadak. waxaanu kaaga warramaynaa baa ilaahay leeyahy ambiyadii hore iyo rususha warkoodii baan kuu sheegayaa baa ilaahay ku leeyahy nebi maxamed. sababtu waa maxay? waa litathbiiti alquluub, in mashaakilkan oo dhan xalkiisa aada hesho aada degtid. وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين. حيلا إنه ورميا سيدا يبيض وقل لك نيد إلهي دينتيس حتى أيضا لقبيه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبي إبراهيم الضبل قبيه ودي دانه كان قضاء إلهي سبحانه وتعالى ضبكي وكيري برف nabadgeliya noqo. barafku marba wax dilaa, laakiin waxaa lagu yidhi bardan wa salaama, baraf wax nabadgeliya noqo. waxaa ilaahay ka warramayaa muuse oo nolosha ku cidhidhiyoontay oo magaaladii ka soo baxay oo ciidamadii gaaladu daba socdaan oo dadkii la socday ay leeyihiin innaa la mudrakuun. nebi muuse waa layna soo gaadhay. uu nebi muusena leeyahay kallaa inna maciya rabbii sayahdi, aniga rabbigay baa macayga ah oo i hanuuninaya. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoogaga warramaya qaar la leeyahy waa laydin googoynaya ama diinta ka noqda oo diidan, oo markaa iimaanku galay. fircoon saxaro soo kaxaysa nebi muuse laga horkeenayay. saxaradii markay arkeen waxaan inaanu sixir ahayn ba ilaahay rumeeye. dabeetana wuxuu ku yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum. طوغاد markay kibirto xataa waxay rabtaa ilaahay rumayntiisa inaad isaga fasax uga qaadato. deetana fircoon wuxuu leeyahy maanoon idin fasaxin ayaa rumayseen buu leeyahy ilaahay. inahu lakabiirukum aladi callamakum الsixr falaw qaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaaf walaw sallimanakum fi juduuci الnakhl walataclamuna ayuna ashaddu cadaaba waabqa. waa idin laynayaa buu yihi waa idin googoynayaa. لكن محيكو جوابه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مرنبا كادورا ما ينبي هذا عطيمها حق رب النبي. مرنبا كادورا ما ينو الله نقول على فاقض ما أنت قاض بنا وحي أتصمين كريس السمين waxaad samaysaa soo maaha bay leeyihin inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya. waa idin dilayaa soo maaha waxaad samayn kartaa bay leeyihin yaal. innagana su-aalaha ugu badani waa maxay? sheekh salaadii iyo shaqadii baa iska horyimay maxaa yeelaa? qoladan ilaahay inooga warramayaana waxaa la tilmaamayaa waa laydin dilayaa baa la leeyihi. iyana waxay leeyihin ma dhimasho waxaan ahayn baad sheegaysaa. dhimashadaan ogollay laakiin diintayda ka tegi mayno. markaad qur-aanka eegto waxaa laynaga warramayaa imtixaan kasta oo bini aadam ku yimaada jawaabtiisii inuu taalo. dhalinyarada waxaa laga yaaba inay idhahdaan meel dad qaawan oo caynkan oo caynkan. ilaahay wuxuu kaga warramayaa
nebiye albaabada loo xidhay. nebi yuusuf oo dhalinyaro ah oo aan xaasa lahayn oo gurigu joogay, gabadhu albaabada u xidhxidhantay oo meel cidlaan la tagtay oo ay weliba iyadu hungurayna soo damacsan tahay oo ay fadal leedahay iyadu hayta leh oo le macaada allahi innahu rabbi, ilaahay baan ka magan galay, innahu rabbi axsana mathwaaya innahu laa yuflixu aalimuun. waxaa ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala in laysku dayey in la yidhaahdo waa lagu xidhayaa haddaad yeeli weydo. warku wuu soo dhaafay, kaalaydii wuu diiday, kufsabaystiri, wuu cararay, waa tii shaarka dhabarka dildilaacsay ninku markhaatiga u furay. warka markuu magaalada galay waa tii dumarka isugu yeedhyeedhay gacmaha isjarjareen. kadib bay waxay tihi fadalikuna aladii lumtunanii fiih walaqad raawadtuhu can nafsi. waa kaas bay tihi ka igu caayabeynaysay, faraha isla googoysay quruxdiisii, anigaana doonay bay tihi. fastacsam, waana i diiday. walain lam yafcal, waaba dhaarata, hadduu yeeli waayo waxa aan faray, walain lam yafcal maa aamuru layusjananna walayakunanna min asaakiriin bay tihi. la xabsiye oo la xabsiye oo la xabsiye oo kuwa la dulleeye laga mid dhigay. inaga qaar meelahaas ka maraya inaga nabadgelila soocagamaha. isna boqortooyada meesheedii dumarkii joogay waya kuwa albaabada u xidhanaya. waxaa loogu hanjabayaana waxa weeyaan haddaad yeeli weydo waxaanu ku farayno, haddaad diiddo waa ku xidhayna. weliba waa xabsi boqortooyo sanada male iyo maxkamad hor galaysaa weeyaan. wuxuu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh. ilah waxay igu yeedhayaan xabsigaa ka roob buu leeyahay. aniga agtayda xabsigaa lagaga jeceliya inaan ku caasiyo zinaysto. wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhina waaku min aljaahiliin. idan waa la xidhay, sanawaad buu ku jiray, bidca siniin, 7 sano iyo wax ka badan buu ku jiray. idan qur-aanka markaad akrido mashaakilka dadku ka cabanaya iyo waxa yaallo o dhan baad arkaysa xalkooda sudii. ilaahay gabadh buu kaga warramaya xagga dumarka markaynu eegno. gabadha karaamaadkeeda ilaahay qur-aanka ku sheegay. waxaan idhaha hebel waa weliyo karaama ka dhacday. tan karaamadeeda rabu samaawaati walardi baa ka warramaya. ilaahay baa ku tilmaamay inay sidiiqa tahay, ambiyada sidiiqiinta ku xiga. wa ummuhu sidiiqa baa ilaahay ku tilmaamay inay maryam tahay bintu cimraan. waxaa la tilmaamay iyadoo iska tukanaysa inay cunadeedana heli jirtay, meel ba inaanay u shaqo tegi jirin ayaa qur-aanku ka warramaya. markuu nebi zakariya weydiiyey xaggaad alaabta ka keentayna inay tiri in allaha yarzuqu man yashaa bigayri xisaab. ilaahay baa cidduu doono arsaaqa way ku jawaabtay. gabadha karaamaadkaa lahayd ammaanaha ugu waaweyne qur-aanku u sheegay waxaa ka mid ah fii suurati taxriim 6 dumaraa ilaahay kaga warramaya. 2 lala hadlayo loo digayo oo nebi maxamed qabay calayhi salaatu wasalaam, caaisha iyo xafsa ridwaan ullahi calayh, iyo 4 labadaa loogu maahmaahayo xaggaa martaamun in aakhirad qabanaysaa. 2 nebiyaal qabeen oo habaarqabayaal noqday, xaasas nebi ahaa. imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay-a. 2 la yidhi idkhula macna naarta gala, maca daakhiliin la gala. iyo 2 ilaahay rumeeyey oo nolosha u adkaystay oo midib boqorkii dunida ugu xooga badnaaba ka hor timi. qusuurtii alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxti ninkii lahaa, masar iyo waxa yaaliyo webiyada tan miyaanan anigu lahayn kii lahaa, ayay waxay ka doorbiday rabbigeed. imra'atu fircawn. gabadha kale ilaahay ka warramaya tusaalaha looga dhigaya waa maryama. maryama aayadani sifada koowaad ay ku sifaysay waxaa ka mid ah allatii axsanat farjaha baa ilaahay yidhi. xagga dambe ay martay
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لكن صفة كوانا إلى هوشة جواب محي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. قبل فرجها إذا نورتها إلى سبحانه وتعالى. إذا قرآنك مركز أخرجه مشكلة كستوء كعبان وهي دوران وهي تاريخ وهي وحي وعالي يقول له عدي تيدافي إلهي تسالك سي شيء يلا سقنان كرو هذي زينتي هذي دليرنمتي هذي مالتي هذي على يورك بدو وينين إلى هذا سياسة دار نقول له بهالسين كارو مشكلة هذا بدل إلهي ذي القرنين يا نبي سليمان يا نبي داود مكورم يا وحكومة بورتويو يندوني دورين قاعدة هستي ولا نبي سليمان جيني سوى كتيريني بورتويو تكنولوجيا هستان ما تانو دوني دورين وهي نبي الله سليمان عرشي بلقيس حكي لك قاعدة سبع صورة مشي مالي ملكة السبع عرشي دي صنعاء لك قاعدة بعلماء دويدا دريا قال كده سبع لك قاعدة وحنا اللي جاي حاجة بيت المقدس انتل وجاي تايم انتلك البرقسي وحده ولا ما انت بيه جرى ولا نحدوده شنو تبين وعقول البرقسي كنت قاوة تليفون هذا سيجنال هم بين البرقسي الغدري كذا لكن سرير ميل طالع لكم درتو نبي سليمان كين تالسي يا نبي الله داود وهي تتصور إذا تصعد كستوى مشكلات شيء جواب تاني بقرأ تعالى waxay noo baahanay markaa quraanka xidhiidhkeenu la yeelanayna inuu noqdo inaynu fahamno oo ku dhaqanno oo xuluul u adeegsano markaa qisas al-anbiya saa daraaddeed baa ilaahay noogu sheegay waxaa la mid ah siiradii nebiga waxaa la mid ah saalixiinta taraajimtoodii iyo wixii laga qoray waxaasoo dhami waa wax keensanaya qofku inuu sugo masalada labaadaan tilmaamaya waxay tahay tathbiitka صبرته الإيمان بالله والعمل الصالح وترك الظلم قفكو إيمانك يسمرك استوي زيادة إيمانك وحكو زيادة بالعلم والطاعة السنة دي أدلة بسيطة إنه حين كان من مال تقوى ذا مسلمية سؤالها قال كود أنا إفتاغك صعدعي نبي محمد إنه النبي يعطيني يدول يا بغشي ما حاجة شفتي ما يكتب مصاري برشاد ربما اوتوماتيكالي ورويسين محي انه نبي يعني اخر ما كاتب لك يوم كوش انا بقول حطوا اعطيني سيد النبي آلاف من الادله باكره لكن انتين برهما يعني احد العلماء بكون لا بقول الدليل غريه في كتاب كليه او كتاب لكن انه انتين ما انت الدليل حينين النبي محمد الهي رسول كيسيه حقوا عطيك رسالة حرمت الله هاي كلما وقفك الدين تسبرتو إيمانك ساحوغوبة يقين تساحوغوبة إيمانك أدي الله الربيسان ما انت هكا تشوكتان وحموران كجرا إلهي مجرا مسمجرو إلهي جريتان كيسا عدد مخلوقاته بعد اللواء انت وحمون دونيدا كجرا ما من شيء للدراسية إلا إلهي بطل مامية لكن ركبة اسكده هي إذا سيرية بورصانا إن الشبهات كيران إن قفك الله لوميو أدو انتابع إيمانك أبو حوقية مركا أو بسيو أدلة وكسر سيء انتابع يقين تابو حوقن تاي هي عمل صالح صادو سميسا حلقية وعمل كينا صالح أبو بضلي شان سلادو دو قلبين يتكلم أردت معانا موي والله وقاكين يتوكل ونكون ردان سايتك باشيس أما بيلك بشي هو يلا درا سؤال ده ما هو كلام بدم يجي يعني الحلقة ما تذكر عمل واحد دم بالسمين يسوي حرق ما عملينات سمينين لكن إيمانك واحد كبعية القفك الصغار وقدر يقينه وإيمانه إيمانك سيد حوتيه وأدلة هي علم قدري هي الطاعة سي عبادة سنتي بلطي هي الظلم يكفوا هذه سادر أدب إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي وحصوا ودين تيسكوا الذين آمنوا كو إيمان كو نبي لغا هلي
aamanuu bilqowli thaabit tawxiidka xaqiijiyey kuwaasaa ilaahay ku sugaa nolosha adduunyo iyo ta-aakhiraba. ta-aakhiro mufasiriin badani wax ku tilmaama waa markay naftu kaa baxayso. markay naftu kaa baxayso shaytaan iyo balaaya soo wada xaadirta, dad badan baa laa ilaha illa allah daba kari waayo la marsiin waaya. wixii ugu dambeeyey u mashquulka bu ku hataree, mid wax iibinayay waa lixayn unbu ku hataree. yani wixii ugu dambeeyey aada walaaqaysay. haddiise cibaadadaadu badnayd waxay u badantay in allah ku sugo subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu ku xigsayay wayudilu llahu aalim wayafcalu llahu maa yashaa. wayudilu llahu aalimiina wayafcalu llahu maa yashaa. kuwa dulmiga sameeyana waa la lumiyaa baa la yidhi. dulmigu wuxuu ka mid yahay markaa asbaabta lagu lumo ee dariiqa lagaga sii hadaabo. ayuha alaxiba, camalka saalixa haddaa badsataan, wardigaaga, dikrigaaga, ilaahay xuskiisa, qur-aan akhriskaaga hadduu bato, sugnaanshiyaha diinta ku sugnaanaysa way badanaysaa. waayo ilaahay wuxuu leeyahy walow anahum facaluu maa yuucaduun walow anahum facaluu maa yuucaduuna bih lakaana khayra lahum washadda tahbiita. hadday sameeyaan baa ilaahay yihi dadku hadday samayn lahaayeen waxa lagu waaninayo iyadaa u sugnaanshiyo badnaan lahayd oo una khayr badnaan lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha wanaagsan markuu sameeyo wuu daa'imi jiray. qodobka saddexaad ama se afraad waxaynu ku tilmaamaynaa aan saddexaad nidhaah waa adducaa wاllujuu ila albaari subxaanah wاliftiqaaru ilayh. inaad ogaato inaad daciif tahay, rabbina aada u baahan tahay, baryadiisa aada badiso. inaad sodhanin wallahi nin baat oo meel kasta waad maraysa. gabadh baa waxaad odhanaysa war meeshan waa khataraysa ilaali. sheekh aniga haydhuna ba kuleeyi maxaa dhacay? berigan yaraa si fiican baa diinta usoo bartay, waxba iga qaldami maaya. arrinku sidaa maaha. ilaahay nebi maxamed buu ka warramayaa qur-aanka dhegeyso. ilahay wuxuu nabigiisa ku leeyay calayhi salaatu wasalaam walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila baa ilahay. walowlaa an habatnaaka, haddaanan anagu ku sugin baa ilaahay leeyahy gaale waxay maleegayso waabad u weecan kari lahayd baa ilaahay leeyahy. haddii nebi maxamed saa lagu yihi adiga maxaad u malaynaysaa? nafta bini aadamkaa shubha yar baa qalada, nafta bini aadamkaa shahwaad yar baa qalda. tusaaleha ku siiyo tusaalayaasha bini aadamka wax ku yaqaanayo. markaynu halka fadhino nin waliba wuxuu isu haystaa walaa inuu geesi yahay oo in xaggiisa laga soo dhacin soo maha. hadii layna weeraro imsaa fadhinaya dushaada marka ka sanqado adigoon sugay baad albaabka boodaysaa daa inaad sii sugnaatee. adigu markaa hore waxaad isugu sheekeynaysa wallahi nin ragaa tahay oo mala haddaad dagaal gasho ma laguma gelgeli kareen. laakiin markay dushaada ka sanqadho dadka inta badani lafahooda meesha kula carar lahay la raadinaya. noloshu waa caynkaasoo midhan. ha is odhanin weligaa ood isku filan tahay ma jirto. ama wadaada how ama wabiina how ama wax aqoono wax isku fillaashiya la yidhahdaa ma jiraan. sida awgeed qofka mu'minka ahi waa kii rabbigii ku xidhan ee markasta isaga barya ilaahw isugu yidhaahda ilaahu adigu isug. fi suurati alicimraan ilaahay markuu ka warramayay shubahaadka oo laga warramay qur-aanka muxkam iyo mutashaabih baynu leeyihi waxaa la tilmaamay wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamana kulu min cindi rabbina. kuwa raasikiinta ahi wixii alle xaggiisa ka yimi ama ha fahmaaye muu fahmine wuxuu leeyahy waa rumeeyey mar hadduu ilaahay ka yimi subxaana wa tacaala. sifaadka raasikiinta iyo dadkaasi wa wanaagsan waxaa lagu sii tilmaamay waa kuwa odhanaya maxay rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab. rabbanaa laa tuziq bay leeyihi ilaahayow ha weecinin qalbiyadayada intaadna hanuunise kadib. ilaah waanan dib u baadiyoobin bay ilaahay ku weydiisanayaan. ilahay wuxuu inoo tilmaamaya kuwa muslimiinta ee jihaadka ku jira inay leeyihiin rabbanaa afriq calayna sabra wathabbit aqdaamana. ilaahu sabr nagu foorari ummadda iyadana sug bay leeyihin wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin.
نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دعيك كصار وروحا كمدا يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواية مسلمنا يا مغلب القلوب هاي ثبت قلبي على طاعتك. إذا قفك مسلم كاهي نبي محمد أدوك الدعيسان يا إله قلبي البناء قديو قلبي جاي السوق وطاعة هذا قصة قبل دين هذا قصة. أي صحابة واحدة هل تخافوا علينا؟ ما كان كيس يقول دعاء بديبه إلى رسول الله ومن ضابط غيسان وصحابة النبي محمد شفته قال نعم نبوي. هذه صحابة النبي محمد الله بقيه ولا ذي نجارة ضلتي محمد مرين سواء نبي محمد صحابة يقول نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والقلوب بني آدم قلوب فرض إلهي تحدث بكجرة سيدو دوريسيغا وركرغا بولي. إذا قفك مسلم كاهي وحوقي ضعف جيس دعوينكي نبي وحا كمد هانجري اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى أهيو نفط إذا هي ترى صارت البرغسين له إلى البرغس يسكب في اللي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا أوجد أنا بقول بدنا تعوذوا بالله من الفتن ولله كما قال فتن كيف تحانض ما ظهر منها وما بطن ومن قاب نمو إن تسكوها الله ينقاطع والله قالت بإلهي وبدأ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بإلهي. ما هو حيأمن إلهي مكر جيس واركام مكر جي الله ما آمنوا دول هروبين مو ينعت كلام رب الله سبحانه وتعالى. حتى بدكم ما أنتوا واحد مدة حتى تايني كعاجسين البريدة إلهي بتصمى نبي يقولوا حولي أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام النبي لي. دب وحاول لي زيسن أعاجز بلن نك إلهي بريدي سكا عاجزة أنت سلادة تكتان ويانا أنت إلهي بريدات ملاينس نفروا برسي ويبسكور بعد إلهي ما أنتي بريدات سلادة بالحسوسة فسلادة لفتي إنه وقرنا إنه بالسكوة مصومان اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. قفك مؤمنك هو قفر ما يسن رجل مديسة كيلجينا نكون من المريخين ولذلك وقفر ما يسن مركز تيل الرب يوبا هي جرجار كيس إلهي جرجار كيس يوبا هي سيدا أوجي إلهي مسد بابا أمبريه وحلي إلهه جيك توصل إلهه يحج إلهه هو طوفان ندوة بدينا كيل اللي عانا نقول ربنا هدوك السوق أمة سوق بخارس حلنا وحيابها أفرع مشهد وحيابها السوق قفك وحكم ده إنه بتصدر إلهي حسكيس إلهي نعرقاب رب من ذكر الله نهار متكوكوين إلهي حسكيس وينبو عليه الصلاة والسلام حوط المامية قفك إلهي حسا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قفك إلهي حسكيس هي قفك هينيني وحي لمد يهين قف نال يقف دنتين قف نال يقف دنتين انتين لا يبور حسن قف دنتين دوا لا في حركة دغدغة قدام بجلو قفك إلهي هالماما لمد غافل كنوضا غفلة يقول روحة الماما من اتبع الصيدة غفل بنبوي ugaarsiga ninka dabagalo una ugaa dheeriyada ee masaajidda meelaha ka fogaada waa qaafilba marka dambe noqdaa buu nabigu yidhi dee ugaadhi berigii hore oyroyga iyo doolarka deemka weeyaan ninka oyro u raadiya iyo shaqo xaggaa laga helaa ee masaajid iyo dikri iyo xus ilaahay ilaaba غافل buu noqonaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam إلهي بالقرآن كما حبذ بنا لي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا دول سينا حصشان الدكتان
وإلهي ذكر سيحسك قلبية كدقان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إلهي وكلي وكوي ما خلقه إلهي إلهي إن بدل حصة قلن هو رأيي قلن دبابة وتصبيح صدر تصل دايما سبينا محد عيا إن إلهي ملائكتي سورين وصليا والله ينصاروا مدوب وفتين كالليل جايو جهاد إلهي وكو الرمي وحليلي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا حتى قال الله قرآن دقالك حتى يودن قبصلوا وهي عنا سقم با إلهي لي لكن مع السقيتان كاكو قرقارية واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون با إلهي حسكي سبضي إذا نراشو قبل الواس كالله الله نراشو رقوال الله ما دام نراشو الله نايتاي وحين أباهنين إنه إلهي حسكي سبضي إنه سيئنو ضد حصلون ودقنوا النقونا waxyaabaha jidka dadka ku suga waxaa ka mid ah inaynu ilaahay diintiisa u gargaarno faafino ama adaa lagu yeedhaya ama adaa waxu yeedhaya bini aadamku dhagax meel la dhigo maaho siisun iska ahaada kor iyo hoos dhan unbaad u socotaa adigoon is ogeyn ayaad maxay kuwan wax sheegaa waxay sheegaan rahu bay yidhaahdaa isbedelka yarka ama dareemo bay yidhaahdeen laakiin isbedelka kulul ee marka kulul dareemo matalan bay yidhahdaa haddaad rahbiya ku rido oo dabka u gaabiso ku shidid oo uu diiro ilaa uu ku karo ma ogaanaya bay yidhahdaa laakiin haddaad rah soo qabato bay yidhahdaa biyo kulul ku rido markaaba uu ka boodaya aadanuhu isbedelka ku dhaca inta badan waa sidaa waad sii milmaysaa iyo isma ogid waad sii milmaysaa maalinba inbaa ku milmaysaa maalinba wax diintaadii kamid a kula fududaanayaad ka tegaysaa maalin cunooyinkaad soo fudaydsanaysaa maalin salaadahaad soo fudaydsanaysaa maalinba inbaa kasii baxaysaa laakiin haddaad adigu daacitay haddaad adigu dadka diinta ugu yeedhayso haddaad adigu xilku saaran yahay waxaad dadka u sheegaysaa adna waad xasuusanaysa in tansuru llaha yansurkum baa ilaahay yidhi haddaa ilaahay u hiilisaan iyo diinkiisa isna waa idin hiilinaya waxyaabaha dadka diinta ku haya waxaa ka mid ah alrifqa asaalixa asxaabta fiican oo dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka ilaahay ka cabsanaya iyo dadka xalaal miiradka ah haddaad la nooshahay way ku raadaynayaan haddaad la nooshahay inta fusaaqda ah inta khamriga cabta inta diskoteega aada inta suuqa gasha haddaad la nooshayna waa ku raadaynaya labada goorba waad raadoobaysaa sidaa ogeed baa ilaahay nebi moxamed buu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy naftaada waxaad ku sabirsiisaa inaad la joogta baa ilaahay nebi maxamed ku leeyahy kuwa ilaahay xusaya gelin horiyo gelin dambaba ee ilaahay wejigiisa raadcaynaya walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya baa ilaahay isha ha ka fogeyni adigoo raadinaya maxay nolosha adduunya dhaldhalaalkeeda tan macnaheed waxa weeyaan ayuhal axiba inaynu isku dayno haddii aad rabto inaad wanaagsanaato dadka wanaagsan baa la raaca haddaad rabto inaad xumaatana inta xun raaca waxay yidhahdeen waxaad iska daynaysee xun talkii baa la daayaa haddaad rabto inaad sigaarka iska dayso inta sigaarka cabta ka had bes waad iska dayn karaysa haddaad rabto inaad khamriga iska dayso inta khamriga cabta ka had waad joojinaysaa laakiin waana la soconaya aniguna cabbi maayo waa adagtay dhan unbay isu raacaysaa imaa inay adiga jarka kaa tuuraan iyo dee haddaad raganimo dhaaftay inaad midh kala soo hadho ama wax soo qabatay waa haddaad laakiin mabaadi' leedahay oo dee nin wax sheegaya aad tahay saa daraaddeed baa ilaahay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy
naftaada waxaad ku sabirtaa inaad raggaa la joogto dadka wanaagsan. ninkii mooryaanta ama daydayga ama qaatilka ahaa ee wax dili jiray ayuu nabigu ka warramay. nin 9 dilay 9 qof. dabeetana nin iska wadaadoo iska cibaadaystuu yimo wuxuu yidhi waa 9 baan dilay toobad ma leeyahay. inna lillahi xaggaa toobad ku leeday buu yidhi. isna uu ku daray waa dilay 100 buu noqotay. nin cilmi le buu yimo wuxuu yidhi waa toobad ma leeyahay. dabeetana wuxuu ku yidhi waman yaxuulu bayna wa bayna tawba, oo adiga iyo toobadda iyo idin kala dhex maraya. ilaahay albaabkiisu waa furan yahay. addoon kasta u soo noqda ilaahay toobadda waa ka aqbalaya. laakiin talu siiyey sheegaysa toobadiisu inay sax noqoto. waan toobad keenay daydagana waan la joogaya mooryaantoo waxba daba dili maayda ma jirto. ee wuxuu siiyey tala ah gruubkan ka hadh buu leeyahy. dhulkan ka tag magaaladan ka bax buu yidhi oo waxaad qabataa magaalo heblaayo, waayo meeshaa waxaa degan dad ilaahay caabudo buu leeyahy. kuwaa ku darsano ilaahay la caabud subxaana wa tacaala. walaa tarjic ilaa ardika fa inaha ardu suu buu yidhi. dhulkan ha ku soo noqonin waa dhul xune. saaxiibka fiicani marka nagu ku badbaadinaya siiba dadka ahlu cilmiga ah. ولذلك إلهي القرآن يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فلا كيف تقي امتحان ضمك يدعان هدي عليا قوة علم قالبها إلهي لي جواب صحيح للهي. لكن هذا مدة جهالات الأول حين يا الله تجحوا قاسي طول اللي اسمكم مرنا أيها الأحبة، qodobka ku xigaan tilmaamaynaa wuxuu yihi qofka waxyaabaha diinta ku suga ah athiqa binasri illah wana almustaqbal alislaam. dadka badh ayaa mushkiladu intay ka badato intan unbuu arkaa rabbigii dunida lahaana wuu ilaabaa. yani qofka mustaqr lilaxdaad ku noqda indheergarad ma noqdo, in fog ma arki karo. wuxuu buu moodaa inay dunidu sidan ahaanayso. dunidana saan ma ahaato. dunidu intaasoo goor bay isbedeshay. marar baa jira muslimiinta guntaba laga jari gaadhay. tataarka dagaaladii la odhan jiray inta jayna laga soo bilaabay sidii loo eriyayey falastiin dhexdeedaa lagu jebiyey. inta ka dhexle muslim baa la caydhsanayay oo waxay dawlada lahaayeen oo dhan la soo riday. aakhir dawla masar ka tirsanayd baa jebisay. dadkii balaayadaasi qabsatay waxay islaahayeen dee dunida wax dambaba ma jiraan. xataa caasimatu alkhilaafa ayaa duntay. baqdaad oo ahayd akbar madiina fi lcaalam waagaasi, magaaladii dunida ugu weyneyd. magaalooyin dunida milyano qof ku noolyihin ma jirin aan magaalooyinka muslimiinta ahayn. samarqanda iyo baqdaad iyo wixii lamida waxaasoo dhamaa dhulka lala simay. haddana noloshu dib ugu soo noqota. waxaa uga jeedaa dadka badh baa qaata waxaa marka ay ku jiraan uu moodo inay noloshu bacayn ka ahaanayso. walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi xillay soo mareen hortiisa inta lagu tumaanu nebi maxamedna waxba u qaban karayn. saxaabada qaarkood sidii loo toorjargarinayay hortiisa ku dhinteen ama se ay u yimaadeen iyagoo ooyayo le reer aaluyaasi xagay ku dambeeyey. camaar baa ka soo baxsaday oo isna kelmadii ay lahaayeen dhabuu yihi nebigu wax ka sheegay. deetana isagoo ooyo nebiga u yimi wuxuu ilahay rasuulkiisiiyo markii toorjarku iga batay waxbaa kaa sheegay. nebigu wuxuu ku yihi qalbigaagu siduu ahaa diinta ku xasilaana buu ku yihi in caadu facud buu nebigu ku yihi hadday mar damba sidii kuu galaan oo intaa haddaad ku baxsanayso iska dheh buu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam. hortiisaa lagu leynayay. maalintii dambaa khabaab ibnu arad saxaabi la yidhahdaa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo miyaad arkay waxaan cadaab ku suganay sida naloo galay miyaanay kuu muuqanin. ilaahay noo weydiin waxa naga dulqaado. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay waa kuwii idinka horreeyey qaar baa inta god loo qodo oo ciidda lagu aaso minshaarabkaa lagaga jeexaba laba loo kala jari jiray buu nabigu leeyay. waxaasina diintooda kamay celin jirin buu yidhi. wala yutimana allahu hada alamr xataa yasiira araakibu min sanaa ilaa xadramut.
إلهي ما كنت أرتي ربي دين تمونا ما يستري ونقول لا إيو قفك صعطتي وكلا صعطة صنعية حضر موت سبان عندما كبغي ربي موياني يا حولي سينو ييغا كعشد موياني ولكنكم تستعجلون بيدك ودك عيسى حان ودن لنا مكا قفك إنه إلهي كالسونك وقواه والغاية بين ظروف نوشة هاي نوشة مسلمين تو أركت هاي لما حاول بطل لكن تريد سامع هاتو هسألنا ورقة اسبدالي ميسو كالسقالات أين التلمام إنه حوي يعني نتصبرتيد ونرش وحفظوا دولة الدكتورية معها وما لسوء تحامل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بيلايين وروح القرقاسة الصبر هي الصلاة والذكر هي عبادة واقم الصلاة للذكر وحق قرقاسة بان ربينا لي يناد إلهي حقيت كيسة بديسيد يناد كيستيد بل مر بضبا قال هذا مقوات كيسانسا يا صبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا بالليل صبرا وهذا ينادين صبر تمام وصابروا لا صبر نكتب إلهي هذا يسبوا صوات كيستو يسبوا بعض الكسوق بوات كيستاين ما راح كسوق بدأت كيسين كلوي مركويا هذا يسبوا صبرا هذا صبر بإلهي سبحانه وتعالى سأوجد نبوح لمن يتصبر يصبره الله قفك الصبرة بلا لقوا صبركما إن المعاصي ذاك صبرتيد ورتادا ناقة قاول جوغان بلاش بلغو راعية وكا إن المعصية ولا صبرتيد معناه ما هم كان هذي كريم ما صبري معها هي ده اللي هذي كريم لا صبره ما سيدك صبرتيد إن العبادة ذاك صبرتيد عبادته مالها كان هو مكلفة في الجنان بكهربتا وقت غير دراسة بكهربتا ماشي حقوق وسطيرة كنت كتابة كهربتا هلقي ما نندى لو مسلمين دركتو كم بقرينو هلقي ترين كاكتيسيس كيتو كدو ومعيبا وهاي قالت ايه لو قالت تو قارتيرة تكون اسم معيبا تمس إلهي كو أبو طيبة عابد يسوي سجود يسوي موحلة لي يا بابا هلقي أدو أدى السؤال أبوري لهذا كان محوصة بيني إلي سويديان الدين تديبو باران هذا قضية بقى الله عبصته ويسمع رمينا يمركع يعني ما هو صبركم ما هو قرا دقال ما وصل بروكلية صبركم حويان إن العبادة كسبرتيد ومشقة تكاليف ويان إن المشقة العبادة كسبرتيد إن المعاصي لأنك كذا كسبرتيد إن تقدر كي مشكلات كقوة كسبرتيد وحياما كان يدق إن الدين تكسر نادم حويان إن تفهمت قيمها الدنيا وإنتهين لك قيمها الدنيا وإنتهين لك مرك الله يبقى آخره نبتأ الدنيا وإنتهين لك مرك الله يبقى نبتأ آخره نعيمة الدنيا وإنتهين لك مرك الله يبقى نعيمة آخره ما أنت مقالة دقنتي أدل قولها داتشق يسي مقالة ردن كري قابل الغسين يا محد يلي أردو شقين لها صباح تقول قولها مقالة إنه حيالون رضا يالنا يا شقين إلهي وحين لي هذا جدك الراعضاء وحالي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله جنة بلعيد عركة يقول كم بلغي وكويا ماشي انت لك 100 سنة ساعة طبعا وراء حارانا يشغير حارانا ما سنة ساعة يعني قيمة أدون كسوك ولوي وحنا نشيري نورا أدونكو بني آدم كو حقوقا سنة انت بدن وحلا لقوال لها وحقوقا لقيت سي وانا دقاونا انت يفك كتشرت الصوما عرب قوم إلا علوش وحمانا دقامسين علوش هداد دقير عمتي هداد بيسا عمتو اسكو بيدي يلا وهاد دقير يوا بيسا مقالة تقام دا قروا عمتي هداد بهوا اسكو بيدي iyadu waxay u baahan tahay inay vitamins hesho waxay u baahan tahay inay protein hesho waxay u baahan tahay inay waxay taqaanay iyadu baahan tahay inta mana waa laga helaa waxay ku kala gedisay waa maxay waa inta ay carabka ku jirto inta ma sabr karaysa
هذا أنت أسبرت تبدأ مينس دوني دقيقة جيد وقت كسبر كرسا وحلوها. ولذلك قفك أوق آخرة يوحنا معي له أدونك لي هذا تصوحي كيسطة إنه الصبر نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي ورقيرد حصوصته هادم اللذات يريد حصوصته يريد حصوصته يدوحه كيسالسة إن داخله وديا قالوا قضوك كلام تلمام إنك صدقه في إنه دين تسحى جستوحى كاملة دين صحة إنك قادته دين تهدى ثقة الله عو قادته وعصلاته سأنصحها إن هذا قادته وقوع عصلانس هذا يسدين تصح هاي ووحفظ هيراكلس نكيل لورنجري بغركي رومانسكي أي النبي محمد وراقه عليه الصلاة والسلام ولي يا أسلم تسلم والإسلام والنبي قليل وآيات القرآن سورة آل عمران كتابة markii waraaqdu u timi boqorkaas ayuu nin caqli leh wuxuu raadiyey ninka waraaqda soo diray horta inuu ogaado ma been baa waxaanu sheeganayaa mise waa run nebi maye mise maaha dabeetana wuxuu yihi wax garanaya magaalada ma joogaan waxaa la yidhi safar quraysh oo ka yimi baa magaalada soo galay igu yeedha buu yidhi 6 nin oo abu sufyaan ka mid yahaa loo yeedhay abu sufyaan ibn al-harb لأنه لو كمدي أبو سيبو فريسي سؤالا ندي ويديني جواب أقول يا ما قفكون بيش شيء بكل شيء يا أبو قرطة ده انترفيو كنا قاعد كمدا ما كان أفر إيه تبى سؤالات ما لها بس تحية تبى سؤالات بويدي وكل رابع إنه تاريخ ده كان كوه قاعد يوحى أو شيء يعني صحيح يعني صحيح سؤاله هذا نمدن ليه وحكم ده السؤال مكان wuxuu waxa ku weydiiyo dadkii diintiisa galay wax dib uga soo noqday ma haysaa Abu Sufyaan wuxuu yidhi may yani qofku hadduu been kuu sheegayo oo marka hore ku qaldaba oo aad gasho demadan muddo ku jirto soo ogaan maysid marka inuu beenaalay sanad 2 3 4 5 6 7 markaad la noolaato qofka bini aadamka waad garanaysaa inuu wuxuu sheegayay وحسها وشيء جاي إنه محيه إنه بهالأنا ما تقدر كريسة نفروح عليه وردين هذا كان قاطع وحيد وباش وقلت تضرب وصار نضرب كويسة أبو سفيان وحولي ما يمحينا دبتري سجوا جوابه وحولي وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب إيمانك الصح أبا صاص يقول مرق قلبي قالوا تبلغ ما بحولي يعني هذا الحق فهمته dadku dib ugama noqdaan laakiin haddaad marka hore si qaldan u qaadato waa kugu cusraanaysa waxaad noqonaysaa kii la lahaa fa ina almunbata laa ardan qatac walaa dahran abqa waxay idhahdaan safar wada socda ayaa midi faraskiisii dhegada la dhacay xoog u eriyey dadkii kalena fardahoodii ayaba iska wateen kii xoog u eriyey faraskii markuu cabaar orday bu wadnuhu go-ayo u go-ay dadkii kalena safarkoodii way iska socdeen meeshii ay doonayeen fardahoogii iyo waafushan bay tageen dabeetana waxay yidhaahdaan almunbat ee almunqatic kaasi laa ardan qatac walaa dahran abqaa bay yidhahdeen dhul lama jarin dhabarna ma dayn bay yidhahdeen yacni faraskiina ma kama daynin orodka mana guulaysanoo nin meeshii hore u tegayna ma noqonin waxaa la mid a qofku markuu diintu ka qaldanto iyadoo qalloocan uu tuurta saarto meel dhexe markuu maraya unbuu la kufaa ilaa war labadi xeri maayatan walidaalika waxaa habboon inuu qofku diinta si saxa u qaato inuu hubiyo dariiq mustaqiima inuu waxaanuu ku taagan yahay uu yahay waxyaabaha ugu dambeeya waqtigu mala iskaba dhamaaya tilmaamaya waxaa ka mid ah inaad dareentid inaad dadkii rabbi doortay aada ku jirto haddaad saaxibulxaq tahay rumaysantay diintii ugu xaqsanayd ay gacantaada ku jirto ilaahi wuxuu leeyay uma awrahna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina kitaabka waxaanu dhaxal siinay baa ilaahay leeyahy dadka kuwaanu ka dooranay
dadka ugu horreyn rusushaa laga doortay iyo ambiyadoo loo waxyooday kadibna intii rumaysaa la doorta. haddaad rumaysantahay intaa la doortay in aad tahay, miyaa hunguri kaa qabanayaan intaan la doorani waxay hayso? yani waxay keensanaysaa inaad ku qanacdo oo xejisatid waxaad haysato. waxaan ku gebagabayn marka, haddaynu nihi iimaanka iyo daacadu way ku sugayaan, macsidu xataa teedayana hadday kugu tiro badato iyana way kula goynayaan, jidkay ku dhaafinayaan. sida ogeed buu nabigu wuxuu uhi war waxaa iska ilaaliseen dembiyada kiisa yaryar, waayo dembunta yarre waxay la mid tahay sidii dad dooxa dhegay oo midba xansas iyo qori yar soo qaaday oo marka ay isu keeneen dab ku shitoo raashin ku karsaday buu nabigu yihi. marka hore nin waliba wuxuu soo helay waa xabad qoro oo waxba samaynaysa keligeed, laakiin markii xasaskii laysku dardaray wuxuu noqday maxay wax karin karaa. dunuubtu haba yaryaraatee maantao dhan markaad wado maxay soo baxaysa akhirka? wax ku gubay akhirka soo baxaysa. dembi weyn baa hagelin wuxuu odhanaya sheekh anigu dee khamrina ma cabo zinina ma sameeye maxaan kaala sameeye? wartan yaryar haddaad badsata lafteeda wax gubtaa. hadday kugu biirto oo ta yaryari tiro badato iyadaa marka dambe ku gubaysa buu nabigu leeya calayhi salaatu wassalaam. nabiguna wuxuu ku tilmaamayaa sida iimaanku uu daciifo, ka zinaysanaya ma zinaysto isagoo mu'mina buu nabigu yihi. yani iimaankaa daciifo noqon waayo iimaanka celiya zino, ka tuugii wax ma xada buu nabigu yihi isagoo mu'mina. macnaheed waxa weeyaan iimaankaa liita oo ka celin kari waayay tuugada. ka khamriga cabaya ma cabaya buu nabigu yihi isagoo mu'mina, macnaheed waa iimaankaa liita. dee haddii xumuhu kugu soo batana yahuud ba ilaahay wuxuu yihi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum. markay iyagu weecdeen ayaa ilaahayna subxaanahu watacaala qalbiyadoodii weeciyey. waxaan kusoo koobaynaa ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday inaynan hoogaynin haddaynu jidka saxaa qaadno. walaw istaqaamuu calaa ariiqati laasqaynaahum maan qadaba lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaai walaa. ilahay wuxuu leeya hadday walaw anahum aamanuu wataqow walaw ana ahla alqaryati aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim. haddii ay dadku iimaan iyo alla kacabsi heli lahaayeen cirka iyo dhulkaba barakaan uga furi lahayn baa ilahay leeya subxaana wa tacaala. idan inaad mu'min noqoto dhabi wuxuu u baahan yahay juhdi, inaad awood geliso, inaad shaqaysataan. maxay u baahan tahay inaad jarmalka barataan horta soomaha markuu deetana xoogsi tagtaan. labada waana barateen waana shaqo tagteen markaa. laakiin haddii la yidhahda diintiina barta waxaa dee sheekh af carabay ku qorata garabin oo afkii guriga ma barantaye markaad ilaahay ku baryaysaa darajada wey. yani afaan wax kaaga xidhan oo kala jirin inaad jilima ku raadsato mooyaane aad weligaa hore u maqal ayaad u timo baratay oo si aad gurigaaga ugu raadacaysato. ma rabbigaa wuxuu ku yidhi xal oo dhan baa noloshaadaba iyo aakhiradaada iyo adduunkaagaba wixii xalku ugu jiray ayaan fahmi kari waayey? macquul maaha. yani waxaan uga jeedaa wixii juhdi lagu bixiyo waa la gaadhaa, wixii tamar iyo awood iyo caqal iyo lacag iyo xoog la geliyo waa la gaadhaa. waxaan waxba lagu bixina lama helo. diintu waa waxa u qaalisanaynu haysano. saa ogeed waa inaynu xoog iyo caqli iyo tamar ku bixina. haddaynu rabno inaynu diinkeenna haysano oo muslim si ahana weeyaan, waa inaynu masaajideenna dhisanaa, malcamadeena dhisanaa, diinteenna xejisanaa, culamadeena keensanaa, kuwa qur-aanka dhigaya keensanaa. waxaasoo dhame waxay u baahan yihiin inaynu xoog iyo hanti iyo caqli iyo wax gelino. inaanu noqon diinkeenu waxa ugu qiimo liitaa aan waxba la gelin karaynin, wax la gacan bidixeeyo aan dan badan laga lahayn, dee wax jiraya noqon maayo. haddii aynan feejignida hadda bilaabin oo diintiina saa u xejisan lahaydeen in badan ka fakerin, baddan aa ku jirtaan waa milmaysaa. taas waa la hubaa. baddan aa ku jirtaan waa milmaysaa. carabta gebiyaageeda waxaa ka mida mid baa gebiyo wuxuu yidhi intuu laba diblo u xidhay
ayuu badda ku tuuray buu yiri markaasu wuxuu ku yidhi war hooy waxaan kaaga digayaa inaad qoydo buu yidhi dad qof intaad laba diblo badda ku tuurto oo tiraahdo war hooy waxaan kaaga digayaa maxay inaad qoydo suurtagal ma tahay gaalkaan la noolaanayaa waanan iska joogayaa meelaha cibaadada lagu hayo iyo diinta iyo qur-aan iyo wacdi iyo waxala tegi maayo waana nabadgelayaa waa qoyi maayadii badan gelaya qoyi maayadii weeyaan waayo adugu aadanihii la yaqaanay kaba nooc gadisnayd nooc gaara ma tihid reer nebi aadam waa nooc qura nooc labaad ma jiro oo quality gaari ma jiro reer nebi aadam waa nooca qura ee la raadeeyo waxna raadeeya haddii markaa aynan diinteenna caqli iyo tali iyo xoog iyo xoolaba gelin waa ynan ka fekerin sidaynu u xejin kari lahayn waa ynaga baxsanaysaa waana aqla shay wixii kugu qaalisna gawar haddaan dab dheeman tuurto quraarada qaadato maalinka adduunyo siistay diinkiisaa la mida diamonds baad qaadinaysaa waxaad guranaysaana waa maxay waa dhalooyin aan meella wax ka tali ilaahay waxaan ka baryaa idinkiiyo annagaba inuu diinta inagu sugo kuwii ilaahay kitaabkiisa fahma ee si dhaba u fahma ee ku sugmanana laynaga yeelo sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin مولاي صل وسلم دائما